كان عن متعسينا يريد كنت متبلالك أحمد أفجع بيسا وحلا يعني حريستي جنو إلهي حسي خبر بيسا لها أبركية لها أنورية سوى كلا دمان فاميلكا ولالك أحمد أفجع قرابة ديسا أصحاب ديسا فنسكي سكاركا دمان يو أنيقو ترجماي فاميلكيغا waxaan si wada jir aan u leeyahay dhammaanteen samir iyo iman ilaah naga siiyo geerida ku timid walaalkeen Axmed FJ aabihiisa adduunka waa laga tagaa inna lillahi wa inna raaji'uun inna lillahi wa inna raaji'uun runtii tan geeri aad u naxdin leh ayay noqotay runtii waxa geeriyoday Axmed FJ aabihi Axmed FJ runtii cidna maanta loo sheegmay runtii waa youtuber isla waqti xaadirada jooga Cariga iyo Malaysia isla xalay ayuu aabihi geeriyoday isagoo bartiisa Instagram ku shaaciyay inuu aabihi xalay geeriyooday naxariista janna Allah ka waraabiyo ayaan leenahay dhammaan saaxiibeel wax nigala doonayeen in barta community ugu soo dhacaysaan commentiga in ilaahay kitaabkiisa runtii dabcan daawadayaal geerida loo kala xarimayo oo qof walba geeri waa u taagan yihiin laakiinse geerida ayaa si kala xanuun badan oo runtii Axmed FJ waxa ku dhacday in isagoo aabihi ka maqan isaga qabriga loo xaaray oo gunta loo dhigay soo kale in adigoo qofkii ku waalidka ah ka maqan ayaaba xasuus kale kula sii galaysa oo runtii aad ayaad u muruganaysa oo runtii marka geerida aabaha ama dadkiina lagu soo sheego adagoo aan waxba u qaban karin duco mooye runtii waxa noqonaysaa warwar iyo walbahaar adiga kugu soo kordhaya hada waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga barinaa in kitaabkiisa ilaahay gacanta uga dhiibo oo sida saxda ah ilaahay wadada jannatu firdawsa mariyo Axmed FJ oo mar qoraal bartiisa Instagram ku post gareeyay ayaa runtii sidan tan oo kale u dhigay laakiinse dabcan hadaba anakoo isku duuban oo team xog bixinta wararka oo runtii ninkan ila hadlaya oo ah mulkiilaha team xog bixinta wararka runtii dhammaan taageerayaasha xog bixinta wararka waxaan nigala doonay inaan barta commentiga ugu soo dhacaysaan runtii FJ Xabiib aabihi FJ Axmed FJ Axmed runtii inaad halkaa uga soo dhacaysaan intaas ayaa nagala rabaa runtii dadaal weyn aad muujisaan oo runtii maadaama uu geeriyo in ilaahay kitaabkiisa gacanta uga dhibo samiriya iimaanka saadiqa asxaabti dhammaan ilaahay ka siiyo aad iyo aad ayaa u mahadsantiin daawadayaal Allah ha u naxariisto waxaa dhintay aabahay macaan alla kitaabkaaga inuu midigta ka siiyo ayaan rajaynayaa jannatul firdaws ku geeyo aamiin alle marti la wada jecel yahay ha ka dhigo aamiin ya rabbi aaba macaan maanta waxaan jeclaa maalintay taada noqoto in aan garabkayga ku saarto oo aan gacantayda qabriga ku dhigo laakiin may noqon ilaahay waxaan kaaga bariyaa inuu jannatul firdaws ku geeyo igu soo duceeyo asxaabayda kuna aamiin aamiin